الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال وحين كجود جرني كتاب كني الرحيق المختوم ما أنتنا وحين كهليني دروس جني كسب سنة ديمه عربتا يدق ماضي إعادة كودي إسلام ككهر marka diimahaas ayay carabtu haysteen markii islaamku yimid kadib waxayna markaas qarka u saarnaayeen suulid iyo baaba iyagoo dhammaantoodba diimuhu isu rogay caadooyin aan wax raada iyo saameyn ku lahayn nolosha mujtamaca mushrikiinta oo sheeganayay inay diintii nabi ibraahim calayhi salaam haystaan way ka fogaayeen waxay faraysay shareecada nabi ibraahim calayhi salaam dhaqankii wanaagsanaa ee ay la timidna waa ka tageen markaasaa dambigoodii batay waxaana markii dambe ku faafay caadooyin sanam caabudka iyo khuraafaadka oo saameeyay noloshooda oo dhan bulsho siyaasad iyo diinba yuhuuduna waxay isu rogtay istus iyo danaysi madaxdooduna waxay noqdeen oo iska dhigeen rabbiyo alle ka sokeeya waxayna awoodooda oo dhan isugu geeyeen wadaadada yuhuudu sidii ay dadka maskaxda uga gumaysan lahaayeen maalkooda u baabi'in lahaayeen diintii alle waxay siisteen dan adduunyo aakhirana waa iska halmaameen markaasay indhahooda oo shan ah diintii luntay gaalnimo iyo qalloocna faafay nasaaraduna waxay u furatay hirdaheeda oo dhan shirki oo noqotay wax murugsan oo aan la fahmi karin waxayna alle iyo aadanaha ka dhaxaysiiyeen dabeecad isku daraysa oo la yaab badan dadkii carabta ahaa ee galay diinta nasaarada wax saameyn ah oo sidaa ah kumay lahayn maxaa yeelay waxay ahayd diin khayaal iyo khuraafaad u badan oo ka fog hanaanka nolosha ee carabta wax xiriir ahna lamay lahayn haba yaraatee dhaqan nololeedkooda diimaha kale ee carabta haystay waxay la mataalahaayeen diintii mushrikiinta oo ay si walba isaga ekaayeen caqiida ahaan iyo caado iyo hidaba waxaynu ka soo hadalnay siyaasadii iyo diintii jasiiradda waxaana noo haray inaan ka hadalno xaaladii bulsho iyo dhaqaale iyo dhaqan waana tan iyadoo kooban carabtu waxay isugu jirtay dhowr qolo oo kala heer ah oo kala duwan oo kala sareeya xaaladda dumarka goobta ahi waxay ahayd mid ku salaysan sareyn iyo horumar haweenku waxay lahaayeen saami xorriyadeed oo caqligal ah iyo amar badi la fuliyo waxayna ahaayeen haweenku kuwa xushmad leh oo la xafido oo darteed loo siiban jiray seef dhiigna waa loo daadin jiray markii uu nin damco in la amaano oo la muujiyo heerka uu carabta dhexdeeda ka joogo oo sharaf iyo geesinimo ka leeyahay amaanta laga sheegayaa badankeedu waxay ku saabsanaan jirtay dumarka waxaa suuragal ahayd inay haweentu haddii ay doonto qabaa'ilka nabad dhex dhigto haddii ay doontana dabka dhex shido isla markaasna nidaamka qoyska carabtu wuxuu ahaa mid loogu soo noqdo duqa iyo waayeelka reerka oo taladiisa lahaa ninku wuxuu ahaa madaxa qoyska oo aan muran ku jirin heshiisyada guurka iyo bixinta dumarka waxaa fulin jiray oo iska lahaa haweenta weligeeda oo mas-uulka ka ahaa oo ninka waxa afadiisa ku dari jiray xigaalkeeda iyaduna talo kuma ay lahayn arrinkeeda sidaas waxay ahayd xaaladii bulsho ee dadka akhyaarta ah waxaa iyana jiray dad ragga iyo dumarku isku daysan yihiin oo aan wax u kala socnayn arrintaasoo aan wax kale ahayn ee foolxumo iyo fawaaxish ah abu daa'uud wuxuu caaisha ka wariyey radiyallahu canhu guurka galmadu waagii jaahiliga 4 siyood bay ahayd tan koobaad waxay ahayd guurka maanta dadku isguursado mid la mid ah ninka gabadha wuxuu weydiisan jiray weligeeda isna waa ku dari jiray markii meherka lagu heshiiyo tan labaad waxay ahaayeen ninku wuxuu afadiisa marka ay caadada ka mayrato ku oran jiray nin hebel u tago isu dhiib isna waa ka fogaan jiray jeer uu hubsado inay naagtiisu ninkaas uurkiisa qaaday waxaana galmadaas la oran jiray u hayn waxaana loola jeeday in la helo ilmo dhalan wanaagsan nooca saddexaad waxay ahayd rag 10 ka yar baa hal naag u wada galmoon jiray haddii ay uur qaado oo dhasho bay isugu yeeri jirtay ninna ma awoodin inuu diido inuu yimaado waxayna iimaanayeen gurigeeda markaasay ku oran jirtay waad ogeydeen wixii aad fasheen waxaana dhalay ilmo waana ilmahaaga iyadoo tilmaamaysa midkood iyaga ka mid ah ninkaas la sheegay
waxay ahayd inuu qaato oo aqbalo ilmahaas. nooca afraad waxay ahayd naag shuraaka ah oo dadka oo dhan u dhaxaysa oo ciddii rabtaaba isaga tagto. waxayna haweenka irdaha suran jireen calaamo ciddii rabtaa ku aqoonsato. haddii ay uur qaadana markii ay dhasho bay isugu imaan jireen, waxayna u yeeran jireen nin sinjisooc ah oo ninkii ula ekoonaada ilmaha ku dari jiray, isna ilmihiisa inta isugu magac daro buu qaadan jiray. markii alle soo saaray nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam waa baabi'iyey guurkii jaahilnimada. guurka islaamka ee maanta jira ma ahe, waa guurka gabadha weligeeda ehelkeeda mas-uulkeeda la weydiisto, isaguna uu bixiyo gabadha oo raalli ah. marka dagaalada qabiilka la isku helo, ninka goobta u hara oo adkaada baa taxaaban jiray naagaha ninka laga adkaaday. ilmaha iyo naagahaas la taxaabtay dhalaana waa la fongorin jiray oo la quursan jiray weligood. nimankii jaahiliga ahaa naagaha intii ay ka rabaan bay ka guursan jireen oo tiro xadidan ma ay lahayn. waxay kaloo guursan jireen naagaha aabbayaashood ka dhinteen ama fureen. 2 gabdhood oo walaala ahna way isla guursan jireen. sinadu aad bay ugu faafsanayd dabaqadaha kala duwan ee bulshadii jaahiliga ahayd. cidina kama badbaadi jirin qofof rag iyo dumar leh oo iyagu iskala hanweynaaday foolxumadaas falideeda maahe. haweenka goobta ahi waa dhaameen kuwa adoonta ah oo dadka lahaa. waxaa beladu ka dhacday oo ugu darnaa waxay ahaayeen dumarka adoonta ah. waxaad moodaa dadkii jaahiliga ahaa badankiisu inuusan dareemi jirin ceebta sinada iyo fawaaxishta oo dadka dhexdiisa ka sheegi jireen sinadii ay galeen. abu daa'uud wuxuu ka wariyey cumar bin shucayb oo isna aabihii iyo awowgii kasii wariyey oo yiri nin baa istaagay oo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam hortii oo yiri, rasuulkii allow, inankaasi waa wiilkaygii oo hooyadii baan ka sinaystay waagii jaahilnimada. nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi xadiis macnihiisu yahay, taas dacwadeedu islaamka kuma bannaana. saa waagii jaahiligu waa tegey, garteeduna waa ilmaha waxaa iska leh ciddii lahayd gogashii lagu dhalay. qofka dhilayga ahina wuxuu mudan yahay in laga dhagaxiyeeyo. walaalayaal, darsigeenu maanta halka ayuu inoo joogayaa. inta aynu ku kulmi doono darsigan darsi la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.